xaflada aad u qiimo badan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka samafalka mujaahidiinta SNM ayaa ka dhacday dalkani Jarmalka magaalada Bonn. xafladaasi oo ahayd mid heerkeedu aad u sareeyo ayaa waxa ka soo qayb galay dadweyne fara badan oo isaga yimi wadamo ku yaala qaaradan Yurub oo ay ka mid yihiin dalalka Ingiriiska, Holland, Jarmalka iyo waliba Belgiumka. waxaana ururka samafalka mujaahidiinta SNM ku marti qaaday dalkani Jarmalka jaaliyada Somaliland ee Jarmalka uu hogaaminayo Maxamed Xuseen Dhacsi iyo waliba xogayaa jaaliyadaasi Cabdi Michael. waxaana xafladaasi dadkii ka soo qayb galay khudbado ay ka jeediyeen ahaayeen khudbado runtii qiiradii dadka aad u kiciyay. waxaana intii xafladu ay socotay dhammaantood dadkii ka soo qayb galay ay sheegeen in la joogteeyo kulamada noocan ah ee wax lagu tarayo iyagu kuwii ku dhaawacmay dagaalkii lagu xoreynayay Somaliland iyo waliba sidii loo ogaan lahaa xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin agoontii ay ka tageen mujaahidiintii iyagu naftooda u bixiyay sidii Somaliland ay xorriyadeeda u heli lahayd. waxaana ururka samafalka mujaahidiinta SNM lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. waxaana hogaanka ururkaasi u haya qaar iyagu ka mid ah mujaahidiintii xoreeyay Somaliland oo ah rag iyo haween. waxaana habeenkii xalay ahaa xafladaasi ka khudbadeynayay ka mid ahaa haween ay ka geeriyoodeen mujaahidiin iyagu caan ka ah Somaliland iyo waliba mujaahidiin haatan nool. waxaana xafladu intii ay socotay ahayd mid dareenka dadku Safaxa Jaadan Haarun, telefishinka caalamiga ee Hon Cable TV, Bonn, Jarmalka.